sheekada imika aad ku soo aabaxday waqtigan imika socota Abdallah jecelahay inuu sharaxaad inaga siiyo waad mahadsan tahay sheekadaas waxa weeye sheekadii aan hore u soo tilmaanay ahayd hurre iyo maxay ahayd iyo cambaro dhex martay waa sheeka 64kii dhacday isaga inta badan inoo tilmaami doona haye shay hordhacan uga dhigna uga dhigna ciyaaraha inta aan u dhaafin sheekada lafteeda Abdallah isaga de inoo sharaxin taas wuxuu sababta ku soo caan baxay hay'adii bahashan ay ku caan baxday wuxuu ku duubay markii horeysay caajalad ama radio Hargeysa ka duubay kolkay dadkii maqleen caajalada lagu duubtay kolka hadda saasay ku faagtay meelo badan ay ku gaadhay tii uu ku caan baxay ninkan magaciisa ay dad badan oo Soomaaliyeed oo suugaanta jecel ay ku barteen taabahay bal hadda imika isaga u tabiinayna si uu inoogu bilaabo heestii sheekadeedii horta heestaasi way jirtay suugaantaana imika taa hore aan uga soo sheekeynayaan u tayda waqtiyo imika ilaa 12 sano waan ku soo jiray munaasabado badan iyo meelaha badan iyo waxa aakhirkana imika taydii anigu buug baan qaabaqaabiyay inuu dhawaan soo baxo laga yaabo isagu qormay heestani dhawaanahan bay dhawaan baan duubnay waqti dhexdaas la duubay radio Hargeysa sida Abdallah sheegay ku talagal lama yahayn markii aan idaacada ka doonaynay inay duubanto waana faaftay runtii maanta lafteedana halkan iska safar gaaban baan ahaayo isma lahayn Jabuuti waana markii ugu horeysay aan imiyo isma lahayn durba markii boosaas lagu biyadheejinaya iyadaba waa iska degdegii haasa wax kale aan halka ugu socday hoosaasada yeela heshaday baan ku jiray imika marka heestaasi waxay ahayd hees sida la sheegay aad u faaftay waynu bal qaban doonaa sida ku soo baxday qaabkeediiba laakiin waxaad moodaa dadkan dambe imika dhalinyarada ahi inaanay heesaha fikrado badan ama ciyaaraha ka haysan marka hees la soo qaadana markiiba waxa ku soo dhacaysa heesahan jacaylka laakiin heesta asalkeedu waa heesihii hidaha iyo dhaqanka ahaan jiray heesta haddaynu tilmaan yar ka bixino bal sida ciyaaruhu ama taa lafteeduba ay ku qabsoontay taa la isaga heesiye lafteedu siyaaba ay ku qabsootay waxa jira had iyo jeer dadka reer guraaga ah marka xilliga ay barwaaqada ku jiraan ay ka nastaan hawshii jiilaalka iyo aroorkii iyo waraabintii waxa ciyaarta ayaa la meelaha ay ku kulmaan waa ciyaaraha dhalinyaradu ciyaaruhu waxyaabo badan baa ciyaarta loo adeegsadaa dhinac waxa loo adeegsadaa in hablihii lala hasaawi jiray iyo waxyaabihii iyo barbaartii iyo wixii la iska hela meesha isku arko dhinac kale waxa laga adeegsadaa waa sidan TV-ga habeenkii wararka iyo waxa looga socdo waxyaabihii dhacay habeenkii baa laga socdaa waxyaabihii dhacay oo habeenkii baa laga sheegay iyagoo dadkaasi sheegaya inaanay mushkilad iyo xumaan ciyaarta uga jeedin waxa heesahooda kamida Allah ayow kufriyo mayno kibir uga dhawaan mayne sacabkun baa kalkii galay يعني waxa la gaaray waqtigii ciyaaraha ee xumaan iyo dambi ma jiro uga jeedo iyaga tilmaamaya marka siyaabaha loo ciyaar jiray waxa kamid ah waxa iska jiri jiray niman la oran jiray orginaagood waxaan filayaa horaan imaka aan ka duubano ciyaarta kamid buu raga niman iska wareego oo xoolahood iyo dantooda baa u nacay ciyaartaas oo habeenba meel ka ciyaarta ka qabsada الرجل تهيره افتهيو ننو ديبانينو عانا wada hooba la ah marka habeen bal reer baa laga dul qabsanaya reeraha inta badan lagu tuhmado in habla joogaan yaa laga dul qabsanaya marka dabraaca waxa loo leeyahay dabraac niman jira leeyahay iyaguna wad jiraano ma dabraac inoo yimiyo dad qariiba baa jiro aynu dalacsanayna dabraaca waxa loo leeyahay ciyaarta waxa laga dul tumay waxa laga dul sameeynaya oog dabba la shidaya ooga oo la shiday dibatan dabkaas la soo bidhansanaya dabraac halkaas eray ka soo jeeda marka hablahaas marka reerka lagu ogaada ciyaarta laga dul qabsanaya dabeetana hablaha waxa la doonayaa loo soo saaraa reerkuyo ay la ciyaaraan marka awalanka hees baa jirta lagu bilaabo bal reerka in la iska hubsado in dhibaato jirta iyo in xooli baadiyay dhowr tuluc inoo sheego ay sidaahdaan in reerka iyadoo kolkay soo saarayaan markay soo saarayaan iyadoo reerkii horta bal la eegaya in mashkilada jirta yaan kale hees baa jirta horta waa la hubsanaya bilo jirta deena wada jirta yaan kale dabeetana wuxuu oranayaa waa dhago war kama dharagti waa dhulo wax jira mooyee reerku nabad ma soo gala waxa iska hubinaya horta ku ciyaaraya haartan deeda intaan markii wax loo soo saaro oran maayaan dil doon reerka meeshii xol waa baadiyeste dad baa xanuunsanaya dad doon geeri baa jirta dabeetana hadii habli joogan marka ciyaarta
waxay odhanayaan iyana ku jawaabayaan cawdi bila balay beer cawro daran ka yaasin in shar laba sharkeed li shaydaan dabada loo xoor dhulku waa nabada inoo wada heestii markaasuu heestii bilaabaya wareysay war waa kow hadalla weeye ku idlaah markaasuu bilaabaya heestii haddii aanay hablii markaas soo bixin oo aanay dabada u soo bixin oo aanay ciyaartii imanin oo ay raagaan mid kalaa heesaya oo isla iyagiya oo doonaya inanta inay soo baxdo miiganay marti haddaad tahay reerkana maalu soo galay muska kaama eegeen buu odhanaya sida heesta u tiriyaa ma ku tiriyaa luuqda wallahi imika codkaygu anigu kolley imika namiiganay marti haddaad tahay obey reerkana maalu soo galay haddee muska kaama eegen markaasuu goynaya jiibkaiyo jaanta goynaya kolley anigu intii dambe hoobal maa noqon laakiin mar isku yardayay laakiin laga yaabaa in layga xariifsan yahay dabeetana ka kale haddana maslaxaya waa marka habluhu ay maqayin oo odhanaya aamina ilwaad qurux way soo ordi lahaydee aar baa hor yuurura islaantii baa celinaysaa way soo ordi lahayddabeetana mid kale odhanaya wariyaynaan degdegine oo isna inuu qaboojiyo war waa gabadh suldaan dhalay oo saxarle hooyadee tahay oo salle bay ku horodaay oo sayna bay la odhan maaye waa la soo sasabayaa hor samee daraanina buu odhan degdegina markaas baa habli suurtagal inay tahay tabaado ciyaartan haddaan habla joogin dee waa kii hadraawi lahaa haddaan gaga ciyaarin haddaan gabadhi boodin ilan gaga ciyaareen ma dhaanta gariyaad هذا بحيد أنت حمد هذا لو يمين يا رجل محوك لا فشرة يا ماشي نوك لا دريري هذا مركب نقول حمك لا شرم ما يناه ماشي نوك لا كحياة نقنيس مركز تبعتنا حبلي مركب ويمان يان تبعتنا وعيارته وبلامس ساس يورت أنت بعدين عيارته بلامس مركب دورنا عن ويديه ورجع حبلا يسويس شرينا نبى يقولي أنا بانو مدة يسويس سني إن أنت مركب فرق لا بحواي أيان سوى بيان تاع الحرالة أيوه الحلالة هذا يقرن ويدنا توبيها قبصت هذا يقرأتنا فراق قادم تأكل نقول إن أنت وان يسوت وتاجوا يبل مركب واي بدنا هستا يدا وصور صديبو سيدا اسمه هساب عجيب هسوه وان ولي بيلاوي هسان وحلا هذا قلا كفول ولي بوان اللاوي هسان قلا كفول بالي هذا شرد وحا وحبا لما صور صدق إن دبده بحث سوى فكرته صدق قبل جاي رواية أيه وحا ما قابتها أتمي بتكلم حلقة وتكفول ولي بحث هذا لبات شرط هذا هو بي كل عيسى استأكل يحسوسه هو بين اللي بات شري اللي مهردو كسر كعي مهواورة يا محل بانو كراني ورد مركب رقص هاي دبيتنا حول أنت مركب أنفر كلام بحواية بانسري تبدأ كسر رصيوتها عيارتي بام عيارتي بالله بلابي ده اللي أنت وين رصنت هاي مركب أفر مروح الحرالة يان هردي سيسوق الشاحي مرة إنك استور شرير مرة أن شاك بالله بنشرينين حدات سكت شاعر باتي هذيك لان شيء كذيته شباب إن أنا هلا أنا أول شباب يقول صدي وشيخ وعن كم مهر صدي شهود كانوا يوحوا ترى حدات سكت شاعر باتي هذيك لان شيء كذيته شن شهر ماله روب هلا يشوح يركو عن يحي ينا حدات سكت شاعر باتي هذيك لان شيء كذيته باني وحول المركب كل يوم باني بلو مرة ضيق على طيبة صح سيسوق الشاحي مرة إنك استور شرير مرة أن شاك بالله بنشرينين شاقة يو أنا فري وأورك يجرنا شرف بيتر أور كيف يكون الماء يا فهمت ده أور كثير ميجا بس ما كان شو شيء أور بنجرة يا ما هي صح شباب إن أنا هلا أنا أول شباب يقول صديق والشيخ وعن كم مهر صديق شهود كانوا يوحوا ترى شاقة يو أنا فري وشيء مرخاتي هو شرعي قصلا رجبيس أي مرخاتي صح شن شهر سمعوا الرواب هلا يشوح يركو عن يحي تاشي جمعين أنت عضو الشيخ تهيا شيطان كويدي عجيب ورت مرة أنت كهريم وأسلم مركب أسلم مركب شيء جواب مركب اللي ما يقول أسلم مركب وحيابا عجيب كوين هلا مال هلا مال كحرست كوي حي وي سوانت كلار وكدوين سوانت كلار من مالها قلا كفول لكن ويلي والله صافك واحد كلار لقى سوى فكرة ده واحد هيستل حبلات wax qurux badan baad keenaysaa waad soo dhuraysaa laakiin waxaan iyagoo aan ka fikirin beel ka keenaya ta aan ku soo gabagabeynayo gogol dhiga dadka hore isugu hees jiray waxa jiray in la oran jiray caamir oo hoob lahaa ragacaanka ah siyaastan laftooda way ku jirtaa oo ninkan hurro ku hal qabsanaya caamir markaa habla isu heesan waliba ay qoys yihiin oo ay meel iskaga xidhan yihiin muddo la iswaday adigu ninkii caamir waa loo taagay dabeetana inan la yaqaano meel lagu og yahay yaa loo raadi yaa la doon waa hebla aan doonaba la inan taasaan ninka ah وجواب كريسة
inantii baa la keenay inantii dabeetana heesi baa la bilaabay inantii hees ay dee ka soo fakertay ayay marisay oo dheer oo halisa waxay tidhi haadweyn colaadii hororkii daraawiish maantii jid baale la helay ragga geela halambeeyey ee ka hirqaday ma atihid geelii hagowganana hilimada ragga u furay hayinada ka dhaansaday haamaha ka buuxsaday ka haqabeelay ma atihid haddii beesha golof helo dabka kiisa halowgale haarabiintu qaataane hanadadu la boodaan hilqadle iyo maadhiin malahay anigaa hubo oo garabkaaga uma hoyan waxa tahay hareefka hagagaafsho meelaha habraac cirta kaga dhama anigana ay heli maysid haddii aad heshana hanan maysid yaan maradayda hugufkeeda iyo heemaal wanaagayga iyo hanqarkayga kula tegi maysid caamir ninka intaa la leeyahay markaa waynu halkaa ka jawaabaa weliba waxaad ku jawaabaysaa intaa eray ay tidhi mid walba intaad furto inaad adna weliba haddana wax gaara tidhahdaa wey nin baa weydiiyey waxaan ku yidhi caamir markaa miyuu soo urursaday wuxuu igu yidhi caamir laftiisaan weydiiyey wuxuu yidhi ma aan soo urursanay adeer halkii aan taagnaa unbaa ilaahay iiga bidhaamiyey oo aan ka jawaabay sideedda hadale aad tidhiyo giddi wada hogbaaskaa buu yidhi waa caamir jawaabtiiya sideedda hadale aad tidhiyo giddi wada hogseega midba hadal lagaa yidhi buu haadweyn colaadii hororkii daraawiish maantii jid baala la helay ragga geela halambeeyey ka hirqaday ma atihid hadalkaanaa furay hooga adigaa jiray hooyadayba lama qabin hooyadayba lama qabin buu anigu daraawiishii jid baale meesha ingiriisiya isku galeena lagu jabay hooyadayba lama qabin buu da'diina dee ku qariyo ilayadaa soo hadal qaaday geelii hagowganana hilimada ragga u furay hayinada ka dhaansaday haamaha ka buuxsaday ka haqabeelay ma atihid hadalkaanaa furay hoota qaadba ma ahayn gaashan qaadba ma ahayn yar baan iska ahay oo duulaanka ma raaci karayn haddii beesha golof helo dabka kiisa halowgale haarabiintu qaataane hanadadu la boodaan hilqadle iyo maadhiin malahay anigaa hubo oo garabkaaga uma hooyan hal yar baa lagaa yidhi kuwa hore isaga wuu qiray laakiin ta wuu ka jawaabayaa oo hal yar baa lagaa yidhi way iyada inaan haysan jiray qori hanti midal ahaan jiray ila rag baaba ammaano qaate hanti midal ahaan jiray oo shiishkana haarib ku ahaa hunkufaha dhurwaag iyo ku halagay ugaadhi waa hadal markhaati leh anigana ay heli maysid haddii aad heshanay hanan maysid yaan maradayda hugufkeeda iyo hemal wanaagayga iyo hanqarkayga kula tegin hal yar baanu kaa nidhi inaan gabadh cas heli karo hodan reerka iyagu yahay anna aan haliye yahay oo mid hayb wadaagtaan oo kaaba sii hanaawacan iyo hiba iyo aroos tahay haybtan daahir weydii ama hurinta reer cawl xoolo say hungureeyo hore igu kaa rida hanada kula walaala ah hooyo iyo aabba maad lihid waxaa tahay hegla qalalan oo hoostana kudkuda ku leh ninkii caamirna halkaasuu gabadha isla maray marka waxyaabaha dadku si isugu heesees jireen ee u kulmi jireen cayaarahaasay ku bilaabmi jireen waxyaaba saasabay ahayd weliba dee waa in kooban baan ka soo qaadanayaa way kasii ballaaran tahay waa mawduuc dee aan maalin iyo laba iyo barnaamij saddex midna lagu dhammayn karay kan baynu usoo noqonaa markaa hurre iyo gabadhan cambaro hurre magaciisii oo dhan waa hurre ibrahim warsame waa hurre walaalki maxamed ibrahim warsame waxa isaga la yiraahdaa Cismaan Ibrahim warsame hurre waa naanayso dadka ay jeer madowya baa loo bixiyaa hurre iyo tuka iyo quulle magaciisa waa Cismaan magaciisa waa Cismaan Ibrahim warsame gabadhana waxa la oran jiray maxamed ibrahim warsame waa walaalaha rawi walaalihi gabadhana waxa la oran jiray Cambaro Nuux Maxamed laakiin markii cajalada lagu duubay si qalad ayaa loo sheegay magaciisa saxii waa kan way cajalada waxa arkaysaa inaan qaab official u duubnay taariikhdan la duubay ma sheegin meesha lagu duubay ma sheegin cajalada ma dhameystira waa cajalada si degdeg ah soco loo duubay waxa la yiraahdaa Cambaro Nuux Maxamed hurrena waxa la yiraahdaa Cismaan Ibrahim warsame oo hurre waanaanistiisa taariikhda ay dhacday sida Cabdalla Baaw sheegay waa 63 eriyada weeye waxay ka dhacday deegaankan Buuhood leh deegaankaasi ka dhacday Buuhoodle kolka waa gobolkan Togdheer ee Burco laga xukumo waa degmo ka tirsan Burco gobolka Togdheer area u dhow ay ka dhacday marka meel aroos ah ayay isugu yimaadeen intaanan horta gelin kelmad yar oo kale ayaan ka horeysiinayaa heesta marka hore cajalada hore aan duubay waxaan ka afeeftay inaan dhinac qura warka ka hayo laakiin maanta waxaan sheegayaa inaan dhinacii kalena aan la kulmay dhinacii hurre iyo dhinacii cambaro labadii baan la kulmay marka hore dhinaca hurre qura ayaan la kulmay oo aan heesta ka qabtay marka cajalada afeef baan ka horreysiyay in hadhowba wixii ka soo noqday cajalada aan dhinac qura un la kulmay dhinacii kale aan la kulmay waa cajalada yar say u duuban tahay marka 26 Juun 2003 ayaa waxaan tagay Buuhoodle waxaan la kulmay Cambaro Nuux Maxamed gabadhii heestaan ka qabtay dabeetana qisadu say u dhacday iyo wixii buu iga sheekaysay
cajiradna waan siiyey kuwii la duubay waliba hurra duubay oo kuwii aan ahayn bal inay wax diidi karto iyo inay wax dhaliili karto cambaro waxay ugu tiri waqti dheer bay ahayd marka maanta wax aan diiday iyo waxaan yeelo midna waxba kama sii garan karayo laakiin heesuu sidaas way ahaayeen waqti dheer oo ka soo dambeysay hurrana isagaaba waxaan ururiyay oo anigu sidaasba awood badan oo maxsaaran bay ugu tiri marka runtii waxaan aad ugu mahadnaqayaa oo si fiican ii soo dhaweeyay dadkii halka aan kula kulmay cambaro nuux maxamed oo heesta dadkii aan ka qabanayay walaalkeed maxamed nuux maxamed oo caaqil oo leeyahay Sanweyne walaalkeed kale oo leeyahay Cali Yuusuf maxamed iyo hooyadood Faadimo maxamed Guuleed oo meesha aan kula kulmay oo qoys dhan meesha aan kula kulmay iyo waliba shacabkii aan kula kulmay meesha buuhoodle si fiican oo taariikhda iga qabtireen ayaan kala kulmay mahadnaq way iga mudan yihiin inaan intaa aan ku sagootiyo maanta marka anoo labadii dhinacba ka haya warbixin arrintan khusaysa oo guna in barnaamijka duubaa waxay noqonaysaa wax runtii hufan ee noqonaysa oo aan baqdin lahayn in dhinac kale wax ka yimaadaan marka sida haddaan ka bilaabo waxay ahayd aroos bay ku kulmeen arooska waxaa lahaa inankuna wuxuu ahaa cambare reerkooda inantuna waxay ahayd hurre qoys reerkooda arooskii markii lagu kulmay hurre siduu sheegay wuxuu yiri inanta arooska lahayd waanu anoo dhowrna baanu isniri warba inanta iska eego ilaa haday inantu yar fool xun tahay heesta la idinka helayahay tana waxaan ugu tagnay inaan tii aanu moodaynayba aan ahayne dee adyaaba sabab quruxdiisa dabeetana arooska markaan ka soo baxnay cayaartii la qabta waa cayaartii aroosyada oo inta badan aroosyada cayaar baa u dhacda soo cambaro markaas ma naqaanayna cayaartii ku jirta dabeetana heesta bilaabay buu anoo markaa la hadlaya anoo markaa cambaro inaan heesaynin waxaan la hadlay buu inanta la guursaday maadaama aan reerkooda ka soconno dee tala iyo waano iyo baan ayuu jeediyay marka hurre ayaa heesta bilaabay wuxuu yiri deeqayahay la guursaday aqalkan daarta laga dhigay ee lagu xidhay daroofyada iyo dadabtan wada qardhaasta iyo barada leeyada lagu daahay iyo daladahan wada xiriirta dusha kaaga soo xidhan iyo waan arkaa darfoolay hoostaada lagu daadsay dadkii muxuu maaliyo dufan iyo aduun hel adiga waan arkaa barwaaqa aduun ku dhamaatay reerkiina waxaan kula qabaa mise kaligaa in baad mise doogsin kaligaa ayaad ku dabaalanaysa haddaba yaan dadku isoo dhan macma idin keenay misna waxaan ku sii daray waxa darajo raganimo iyo dunya dhaqasho leedahay hoos ugu madaadigi dusha salaan gobaata dayax soo baxaata geeya aan la diifay oo dalsan lagu dhaqaata cusubaan diq laga dhigin iyo dooquna baxaata anna inaan dadkiina ah dusha bahla jiray iyo dooya ku abaanahay afar hal oo dantaada ah duu kuula iga maqan dacwada hore waxay tahay ninka dadabta baalada galay waa duloobaaya shayga dabada ka tagay maryaha daahiri dacwada kale waxay tahay dugsi weeye xooluhu kiila ana darandeeriyay dunyadu yaani ka lumina duliyo hoos boogo dacwada kale waxay tahay dulmisayga ka helay diidaya ku shoogu xunay waa dignina labada dibnahaga ku ugu dacwada kalena waxay tahay niman daalina jiro dambiga dhaqmo iyo duxu waxaan ku gelinay kugu dayay baabadane duxatada iska ugu kolka waa inantu waa reerku oo leeyo in la inceebeyn sida kala iyo waanu siinaya leeyahay halka ana danjira noo inantii waana iyo tala iyo de qurux waad leedahay oo si wanaagsan baa lagu aroosayo dabeetana cambaro ayaa heestii qaadatay waxay tii goortu waa habeenimo waana heel cayaareed halqina way soo galay oo hara la isu garan maaye inaan kaaga heesayo hortaan isbaranay haybtaada noo sheeg yani waxa la doonaya la sameeyo dee bal meeshaad ka timi iyo waxa tahay iyo meel lagaga jawaabi kara in la xego kaya sheegtay dabeetana hurre wuxuu ku jawaabay haybdoon haddaad tahay hoygiina ina geeyo hararkaaga iyo gogolo hooyadaana iga qariyo hasaaway qabo igu haybsan dabale yani dee meel habboon aan isku horeysano dee samee halkan ay igu horeysanin meesha waa fagaari lahayd cambaro waxay tidhi sidii hogol kaliileed oo ka hilaacday hawd sare inankani han weynaa sawdiga hawada koray niman halowla maadhin iyo 100 baar madow hurin oo la heshiinin aabahay harar aan u dhiga daayo hadalka maaniga furabay xagga hadalka dib isaga doonaysa hurre taa wuxuu kaga jawaabay dadka himila aan jirin ruux ku hamiya baa badane qof hadduu hawada koray ama fulay heegada hor ilaahay waa adiga niman sheeka ka helin oo hadalbada dhex marin waliyo harana ku aqoon jirin sidoo kuugu hawlgalay hantada kaaga soo dhuro faahfaahi hadallada oo bal hebay dadka u sheeg la kuba garan maayo boqolkan halaad iyo qorigan sida u doonayso waxay tidhi inantii haaruf loo waraabuhu halka xorada ugu dhacay habeenka hore u sahantay adna habar yar waad aragtaa hadalku inuu wax jira yahay ujeedooyin hor la iyo hundaraadis baa tahay hadla ganacsado anaga har looma yaala arag ana hebay ilaahay iyo hodan ku deeqo bixiyaa maxaa adiga hagardaamiye kugu jira dhib iyo hawl heerkaas aanu joognaa qiimahaas aanu leenahay maxaa adigu
hurre wuxuu yidhi weli hadalku raarkii hoos ugama soo degina halkiibuu saaran yahay weli adigoo hutahutahaya ka saara hedho walaa hoos u daadig saaxiibo hantida ayaa xukumay kow yaa laga helaa laba ma haween kalaan jirin balse inay hibay sheekadu hanfada meel ka yara tahay daraanu hayno oo kula hayba iyo raas hala naguma joogaan gabdhaha ina ka hodantaan ma haddaa xukumatee mise horeba waa jirtay annagaa naga hal weydi yacni dee reerkiina in badan baabaanu ka haynaayo qiimaha ma joogaan adigu intaasi iska taataabashay kaftan bay ahayd heestii markaas bay gashay meelihii kaalmihii muhimka ahaa waxay tidhi inantii inan yahow nin guulguul iyo gardarrada ku tala galay oo geeska fiiqday baa tahaye nimaan gogolna weydiin oo galab sheeka naga helin oo gacantiisu noo iman oo guudka uun ka halacsaday genyooyinkaa kacay yaa wuxuu haban kara guuyi iyo geelisa soo tubo oo weliba ay u tahay guul haddii aadan goosan ka rahayn oo reerkiinu guban yahay gegida ha isku caataynine iskaga hoyo gabaylaha bay tidhi haddaanad haynin qiimahan isdhibine iska joog bay tidhi wuxuu yidhi hurre markuu arkay halka ay sheekadii marayso garcadaaye bohsaday guurtidii iyo islaamkiibaa guubaabshihiisii yidhi geel ma siina giddi waxaa la yidhi haa gadaan cidi rumaynayn iyo geedkaaga kac inay tahay oday garanayaa yidhi been inaan ku naar gala haraan uga guddoonsaday gambar runa ma bixiya dadna mood bakhayl guraan dadna garay ujeeddada caawala golyo maasada waxaan uga gol leeyahay dadku geel ma wada lahaa garmadooba igu baxaya gashana iguma soo hoyan sidii guluf cadaawa haddaan reerka iyaga galo intan ooda garab dhigo gunta xerada ku hubsado lixdan ay ku gabax tidhiyo ina gaadis wada dhalay waa riyo inantii geela joogtay isna riyo haya lixdan ay ku gabax tidhiyo ina gaadis wada dhalay oo gardaqarar u weyn tahay oo iyana gawsaheeda jilibka weli gamuuraan riyaha iyaga ka soo guro oo gurigiina soo tubo adig iyo geel xidheenadu miyadan gaada kacayaar iyagu cula igu imanay waa inantii boqolka geela doonaysa inantii lahayd haddaadan boqol baar madow iyo riyaan haya weliba miyaan layga hor imanayn riyaha walaanta qiyaas hawd bay joogtaa oo riyaaba uma taqaan xoolo geel iyo fardo iyo bay dee wakaa inta waa xanaaqtay waxay tidhi guurdoon adduun beelay iyo gob danowday inaad tahay baan gacalow ku moodayey dee nin markii hore undee wax la-aan haysan ku moodayey imikaan garwaaqsaday gumar iyo inaad jiic iyo geed xun iyo qadhaar tahay imikaan garwaaqsaday guri xun inaad ku noolay imikaan garwaaqsaday inaydaan guursan jirin inan ay dhaleen garaadaduye anigu gaanka aanahay gololada sidayda ah geniyaadka lacageed iyo gumucyaraha maadhin iyo gaadhiyaal afdheera iyo geeliba lagu waaha horta marka iyagaa nin gaataa gaaridooda siistaaye guban iyo cal xeebeed iyo gurigiinii orodgee riyaha gabadha lagu rabo madgeynaa lagaa yidhi anaga waxa shaqadeeda maaha guban waa dhulcaa xeebta ee kulaylaha waa halka hurrana markaa ka soo jeeda riyaa lagu yaqaan hala qabayt dabeetana hurre wuxuu yidhi heestii waa laygu tumay waa la qoslay dee deegaankuna waa deegaankoodii aad baa heestii loola dhacay inanta yar xanaaqay markaa waan yar xanaaqay buulo waxoogaa baa yar galay markaa inantii wuu ergoyo reerkoodii buu la hadlayaa leeyahay war dee inantaa ha la qabsado oo caamirkiiba kusoo lad qabsanaya ergii hore wuxuu leeyahay caamir ba waxaasoo kala helaya inantaa ahoy hadhow baa qosolkan waxan ma qabsataan hadalku waa garaysnaayo goshaal iyo subiiciyad baa goonyaha ka saaraaye saw kaa gaadhay maarkii linka uu ka geli jiray ha yeeshee guraaraha iyo ima gelin afxumaduyo gabaygaa kaaga hore sabankoo gola aad ka heestaabaa kuu ahayd gugoo quraho macallinkii ku gadabaray baa isagaan kuu galgaal bixin gudcur kaaga tegay damahe goofaadhi maansada weli gibisha kama rogin mana gaadhin meeshaan geediga kusoo raraya godolka iga soo dego guud ahaan dhulbahanta ugaanka uu wacays dhalay gaar ahaana reer nuurow weligeed gabadh la sii daystaabaa goor damba laysku hiifaayo caamir bay gadaasi heshay dhalinyar iyo guurtaba golaha waa ku joogtaan oo qosolku wuu gabaabsiiye inantu gacal ma leedahay waa reerkoodii wuxuu la hadlay gabadhii qabsadaa weli gibisha kama rogin mana gaadhin meeshaan geediga kusoo raray godolku hayga soo dego mayaduu gugaagi garab maray 30 garaad faarax aanad hayn gacanqaadka reer kale dhaban uu gayaanka u xusho adduun gooyo gooyo jara ku saaray ayaad gaadhay iyo lacag iyo lagu ardaa galay iyo waliba geel sugaysa gobla tala adduunyo mar haddaad gobaaday adigu gaadhay heerka de ina bulina golake haliye qaran ha guursado gaaf loo sameeyay ina bulina wuxuu waa gabadh yar weynaatay oo maskaxdeeduna aanay marka caadi ahayn meelaha wareegto iska caanaho dadku yaqaan ha ina bulina way ka xanaaqday oo mar haddaad uu ka xanaajinaya mar haddaad gobaaday adigu gaadhay heerka de ina bulina golake haliye qaran ha guursado gaaf loo sameeyay ina bulintaana way yar diid waxay tidhi inantii gaada bari ka soo kacay oo in badan soo jidaal galay oo garmaqaate iyo waran iyo goombiyad sitaa tahay maadigaagii errada gubay baa weliba godobi daba dhigay oo qaba eednan galay goblan tala adduunyo ha yeeshee gafkaagani anna waxaanu ii gubin garashaanad ii qabin oo gagidaa iga ka hor oo wadila gawaan raacday gawaan raacu waa fardaha inta mid la fula kuwa kana gawaan raaca marka waxay leedahay iba garan maysid waad ila raacdo ha
qiimaha jooga ma garanaysid gegida iga ka hor wadala gawaan raacday geedku istaagaba maxaa aabahay gaan iyo geel qaada lagu yiri muxuu wiil gayaani aawaday u golongolayo intuu galay xasnoo dhow isagoo gaajo iyo holan iyo galan iyo darxuma qaba gabalku waaqla ugu dhac maxaa dumarka gulaala iyo galka hoose ii timi gacalka hele heedhe tolka laguma godoboobe haddaan gaadho ina bulin mariya beer ka guran maysidi haygu guban qiyaamaha bayti daadaa ma jooge waba la isku kay haystaabe intaasoo ragaan diiday ku taw igu daalaanay ilaa islaama ayimo intaasoo wuxuu hurre wuxuu yidhi nin hadduu gabraar tago xabaddu goonay daaqyada iyo islaha ku legad gool garanuugta weyda iyo galinka hore yac kuma rito anigana gafinaneed iyo gardarro dumar igaga timi geed korriimanaan lahayo ima gelisa shidaad ama gaada igu sheeg ama guluf coliyo tuugo runta un hagees mari goryadii falaadha suntale gajada looga soo jaray ka gilgilatay baa tahay maadigaan gu weynayno duumaale geel xara gala gaawaha usnan jirin maadigaan gugii xigay garab weyn ahaan jirin gumciyadu adkaadeen oo loo soo cayaar gudo maadigu se gaydhood haddaan oday wakhtigu gaba iyo guun quustay kuu iman baryahan inan goliyaad maalahay kuu soo ardaa gala gacalkaa hele heedhe sidaa tahay gabdhaha qaar ama guga hablaa kacay ama gololo reer boqoloo kumayaal gayaankeeda araggeeda goobaana xoolo gooyo waaye ama aan kuu golleeyahay oo guur anigu kaa rabo maxaad isla gaasiraysa maxaad isla yaraynaysaa da'daada waanu garanaynaaye da'daada waa la garanayaa maxaad isla yaraynaysaa ayaad isla waalaysaa gabadha baa tahay dee inantuna da'doodu labadaba way sheegeenoo midna 17 jir 18 jir meelahaasuu igu sheegay midna ilaa 20 jir buu ahaa waliba inantaa yarayd gabadha markaa yarayd dee hurre waa la wataa marna riyuu dabada gelinaya marna da'bu dabada gelinayaayo waa dee heestiibuu dee wuxuu samaysanayaa meel dee uu inanta qabto inantii way heestay hees waliba qurux badan bay heestay oo macnaheedu tahay ama aan da' weynaadu ama aan yaraada dee mar dad riya wadato kulliba riya ku goyn maayo waxay tidhi mar hadduu gondaha hoose iyo awriyaqaan gulqabashada guudaan dilwaabaha loo gorra dhigis lagama karo ragguna hadduu guddoonsado inuu dumarka gaasiro oo gardarrada ku tala galo geed xajiinle uma waayo raggoo dumarka hadduu doono iska caayo wuxuunbuu ku sheegaya ama magaalada gashay ama waa kan ama waa da ama geed xajiinle uma waayo ama aan gu weynaadoo duumaala geel wado ama aan gobaysaniya soo gaadha waayel ama goortan aan kacee mar haddaanad geel dhaqan oo gacantaadu maran tahay halkani waa garciideed oo geesbuucay wadatiya riyu inan ma gooya horta marka hore dee da kastaba aan joogay halkani waa garciideedo geesbuucay wadatiya riyu inan ma gooya maxaa gadaha aan joogiya kaaga xidhan gankaan ahay kol baad i guursanaysaa bay tii adiga ma kol baan kuu jeedaayo da'dayda iyo badahayga iyo waxayga maxaa kaa gala ka baxbad hurre wuxuu yidhi aragde in meeshii lagu laaday oo riyihiisii waxiisi inan yahay garaabidiya isma qarisa geesadu buu yidhi garaabidiya geesadu waa xanuuno inta badan cudurro geela ku dhaco laga gudayo inan yahay garaabidiya isma qarisa geesadu rabbigay baa ku gaadhsiiyey gadahaaga ku ekow miyaa noqotay gaasirid iyo geed xajiinle iyo cay waa hagaaga gaban tahay bal yaraantaa baan kugu yeedhay haddaad da'dii diiday yaraantaba ka soo qaada waa hagaaga gaban tahay aniga gumaro xoolaad gidda weela wacantahay adigaase kala guray maaniga anoo goba gudnimo intaan yaboohsado xagar dhuugu igu gana iyo sida bahalka ay gala manaa webiga aan go-in iyo durdurrada ka geediyo gorogoro kalileed iyo garab weyna jiilaal anoo aanu gowracan balli kaadi laga goostiyo golmud biyaa midad uusada maanaa subaga garaxiis iyo gembiyahaanta ciirtaa oo gorof caydha lalansada maanigaa gar sara tago oo reer hawd ka guursado oo guri holafa jiibsada bu reer hawdkii iyo geel iyo wixii caaya rihiisi ula dudayaa leeyahay sixin iyo caano iyo baan haystaa iyo waxo rihiisi baa bur koolkoolinaya hawdkii iyo geel iyo waxay faanaysa wixii buu diidaya waxay tidhi inkastoo raxmaado oo rabadinada daadxala ama uu ramaas cuno ina walawalow raadiyo adhigu raasamaal male horta marka hore inan yahow sabool ruxa iyo abaar gaagmareebaa wuxuu reer ka doogaayoo rajijiidhsan waaya markuu raysin qoraacada iyo rati dhaban madoobaahoo riinji dhaanka ugu geeyiyo geel ruuda leeyahay mar haddaanad ruux dhaqan oo horweyn raabaraaba oo rayfa loogu sahanshaa rudud ugu dareeraynoo ka dul raamin maandeeqoo raajis qoysku maalayn rigli ma laha baadi iyadaan rabbi badin rafan iyo ciriid kulul iyo riyabuur ku daba joogoo ka ridow xigaalkaayoo raawis noqo dulee taal wiil yahow run baa fiicane orin raaska ku joogtiyo raalliye ku noqon maayo wax intaa ka madaxroon aan u riyaaqay sheeg waxa kale la kaalay riya maayo aan u riyaaqay sheeg riya kugu noqon maayo run iyo reere wax kale hadda wax kale la kaalay ay ajay wuxuu yidhi
cambaray duq raayibahoo rug cadaaya baa yidhi xadhig aan la raabiyin iyo ra'yi iyo go-aan dumar midna ma laha raandhis waxaan imika bilaabay heesihii aan ku jirin cajiladda markii hore labadani waa ka mid marba waan taaban doonaa inta aan ku jirin cajiladda yar wuxuu yidhi cambaray duq raayibahoo rug cadaaya baa yidhi xadhig aan la raabiyin iyo ra'yi iyo go-aan dumar midna ma laha raandhis adigaa walaal raba riyo inaad ku noolaatiyo runta dabaq inaad saartee inan yahay rakada xiis iyo raariyey calowgumanoo gugu uu ka ramashiyey rawxyada caleen fidhatiyo ruqub kaga dareeraysaan 60 dhalo rabaayadoo riixaya 2 qood ris qabow la soo tubino barqadaanad caga rubad ramadkeeda dhiil darinoo ku rakaadan dhowr jeer riyaha maadan caydin riyiisi u amaanaya isagu wuxuu amaanaya ma se geelaya badan ka galay wuxuu amaanaya